xamse iyo hoodo waayaha iyo waqtiga iyo duruufii ku gadaabnaa ayuun baa kala fogeeyay maantana waqtiga laftiisii ayuun baa keenay inay dib u midoobaan wixii uu doonayayna uu haystaa wax ka maqanna ma jiraan maxaa hadhay inuu wax barto jaamic noqdo runtii caawa labadoodu waxay taagan yihiin garbahayga garabkayga midig ban muxuu ahaa fadhiyaan iyagoo habiya iyagoo isku faraxsan عاونا حبيبتي وتركتن إن حبيبته وتحل حبيبته لقنتادي لا في هاجا لقنتادي لا في هاجا لق صعدكاجا أيا يا إلا بكعي يا إلا بكعي وهبين كدوان جود هامبا هبين بدن أود لسه سعتين شيء كذا ننتعناه marmarka qaar dad yowga qaarkii waxay la ilmeeyaan murugo iyo wixii la halmaala mar kale se way ka gadisan tahay farxadda tan badata ayaa dadka ka keenta ilin waa mararka qaarkood waana markay inta badan ururto farxaddu caawo kale waa jawi farxadeed waa habeen xamse dhool cadeen aan hore looga baran intii uu socday barnaamijkani aanu ku arkayno waxa caawo kulmay alla kulmiyey wada shaahaya wada fadhiya wada sheekaysanaya isla markaasina bugaag jacayl wada akhrisanaya oo goobtan quruxda badan ay midaysay waa xamse iyo hoodo oo in badan qisadooda aad la soo socoteen waxa weheliya qoraaga buugga wehel jacayl oo isaguna door weyn ka qaatay inuu isu keeno lamaanahan hawshooda galo waqtiyo kala duwan oo ay qaateen caawa dib ayay u mudoobeen sheekadeennana waxaan jecelahay inay inoogu soo dhammaato inooguna soo xidhato dabaaldegga nolosha iyo jacayl hirgalay oo ku soo dhammaaday sheekadii aan ugu magac darnay siqiirkii la sara seeray jacaylka si caawa waxay taagan tahay siqiirkii ku guulaystay jacaylka ogo aniga ku jacay ayaamu hadan ku warag qalbiga abaarsada bismillaahi raxmaani raxiim caawa wallaahi waxaan idin wadaa arrin farxadeed oo ka wada qoslin doonta bulshooyinka aad iyo aad ka soo garab istaagay igu siiyay garabka aad ka weynsan qofkan adduunka ugu jeclaasan ku heli lahaa waliba aan karaamo aad iyo aad u weyn u hayay in kulli sheekada dad badan baa la socday dad badan bay taabatay dadka Soomaalida intooda badan way la socdeen caawa hoodo wasaaq fadhidaan buugi wehel jacayl bad wada akhrisanaysan bal dareenkaaga maxaad ku cabirnaa caawa kale wallaahi waxaan ku cabirin horta wax iminkaan la oran karo ku cabiraya ma jirto way dhaaftay deemeeshii lagu talagalay xadkii lagu talagalay way ka tagtay waad caawina xaybtay waad aragtaan in xaybto oo taxal xaybto in qoraalka buugu hel jacayl cabsimad sumcad ah oo isagu sidoo sheegay in badan amuuraha jacaylka iyo sheekooyinka ku soo dhex jiray alle ku guuleeyay oo ku simay caawa inuu isu keeno dadaal badan buu muujiyay isaga maxaad oran lahayd aad caawa oran lahayd wallaahi horta wax la oran waxaan iraahdo wallaahi horta ninka cabdisamad sumcad wallaahi hadii maanta abaalkiisa wax walba hadan maanta sameeyo wax walba ma gudi karo marka ilaahay laga baqo oo waxa waxaan ku gudi karaa maanta ma jirto oo waayo oo wax aan noloshayda taariikhdayda dambe igu yeelan doonto saameyn aad iyo aad aan mar walba xusi doono waana taariikh nololeed ii gaar noqona isagana meesha waxaan ka maqnay maxamed cabdilaahi maxamed andar isaguna muuqaalka aad iyo aad iga soo gudbiyay oo aan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayo waana dadkii igu dhiirigelin jiray markan ula yimi go'aankan sida fiican iga aqbalay isaga iyo bushaariyo waynamadii aad iyo aad ka soo garab istaagay bixday MMTV inamada aad iyo aad ka soo yeestay wallaahi ma ilaawi kartay waxaan ku tilmaamo shay kara fariintaada ugu dambaysa aad bulshada Soomaaliyeed u dirayso iyo mid dad hoodo u diraysaba sida hoodana tan ku fadhiday hoodo way naag fadhidaa waa tayna maqlaysa waxaan imika ka iraahdo horta ma jirto ma ganaysa wax walbana imika way dhan yihiin indhihiin aad ka aragtaan wax laga hor dhacayaana ma jirto wixii dambena xagga dambe ka ogaanaysa aniga caashaqo halkayga weeyaan wilayga beeriyo wadnaqayga weeyaan wixii ka shirtana iskuma ba wanaagsan xamsu
jacaylkaagu jacayl xarkaa goostay buu ahaa Ee. jacayl dad badan ay yidhaahdeen boodheri dibadii Ah. maanaana rag bay ahayn Ee. dad badan oo barnaamijkan ka soo muuqday waxay sheegeen jacayl la mid ah inaanay erag afkun si ay ka maqli jireen maadaama caawa hoodaad saag fadhidaan wada joogtaan alle idinku guulay inaad dee farxaddiina dub ay u soo laabato maxaad rajaynaysaa والله ده قف والبورتا wax wanaagsan uu rajiyo qof wax xun rajiya ma jiro laakiin rajadayda hadii si wanaagsanaatii Waay. oo boqolkiiba la oran karaa boqol imika way dhaaftay boqolkiiba 99% lama oran jirin wayba dhaaftay boqolkiiba boqol boqol saasay sare u dhaaftayba waay oo xadkii lagu talagalay Waay. imika way dhaaftay waay in kul dhibaatooyin badan baad martay waxbarashadii waad ka hadhay dhalinyaradii asxaabtaada ka dhex baxday kubadda ciyaari jirtay waad ka hadhay waxaa ma kugu jiraa qorshe inaad dhammaantood soo celiso haa waay waayo dee iminka qorshayaasha ugu waaweyn aan iminka waxaa igu jira taa muhiimadda koobaad waa inaan san iskuulka igu noqono sanad keliya hadhay meelaan kaga hadhona maanta ma joogoti waay oo ta koobaad aan muhiimadda siinayo hadee inaad waxbarashada inaan waxbarashadeydii ku noqdo aanan wax kale aanan la soo istaagin ood noqoto qof wax bartay oo qof mar wax- hadduu jacaylkiisa marode dee wixii uu doonayeyna wuu haystaa wax ka maqanna ma jiraan maxaa hadhay un dee inuu wax barto jaamicu noqdo sidaad ogeedeen maalmihii u dambeeyey waxaa tv-ga caalamiga ee MTV ka socday qiso runtii dad badan soo jiidatay kuwo badan ay la murugeysnaayeen oo hadalhaynteedu badatay markaa sidaad hore u ogeedeen xamse ayaan ku casuubay maalin dhaweyd muxuu ahaa gurigeyga iyadoo uu la socday wariyaha qisada soo gudbiyey wariye maxamed andar xamse maalintaa waxaan aada iska wareysanay qisada habkay ku soo bilaabantay iyo halka ay maanta marayso maalintaa marayso xamse runtii wax badan buu iga warramay taasoo igu sahashay dariiqan guusha ah ee aan maanta taagannahay waxaan isku dayay inaan hoodo la hadlo oon xiriir la sameeyo runtii intii hore way igu adkayd oo hawshu may sahlanayn sida aad qisadaba ka wada dheehanayseen laakiin marka dambe ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan hoodo wada hadalno in hoodo aanu isfahanno akhirkii kadibna ay iga aqbasho in muxuu ahaa arrintii uu xamse dee ka cabanayey inay muxuu ahaa wax kala qabato oo ay soo dhoweyso qisadii muddada badan soo taxanayd ee dee negatifeka ahaydna ay positive u bedesho sidaana uu arrinku ku soo dhammaado runtii caawa labadoodu waxay taagan yihiin garbahayga garabkayga midigban muxuu ahaa ay fadhiyaan iyagoo habiya iyagoo isku faraxsan iyagoo joogoodu degan yahay iyadoo markiiba aad ka dareemaysa muxuu ahaa wejiyadooda farxadda iyo dareenka ay dib ugu midoobeen arrintaana runtii waxaan aada uga mahad celinayaa xamse markii horeba isagu wuxuu taagnaa final ku taagnaa qofka tanaasulka intaa leeg samaysay waa hoodo runtii anigu aad baan ugu mahad celinayaa aniga iyo asxaabta kale ee halkan ku wada suganba maxamed andar bulshaweynta soomaaliyeed iyaguna muuqaalka ku xidhnaa waxaan ugu bishaareynayna in arrintii soo gabagabowday caawana ay finalkii taagan tahay waxaana muxuu ahaa ka dalbanaya inay soo duceeyaan si inta hadhay hawsha maadaama ay bilow tahay inta hadhana ay usoo gabagabowdo khayrna ugu dhammaato insha allah cabdisamidow kolley hawshaad gashay hawl yar ma aha dadkuna si taxanaa bay sheekadan ugu xidhnaayeen adiga sidee kuugu suuro gashay in hawshan lamaanahan oo arrintoodu meel dheer kala taagnayd inaad si soo dhaweyso anigu maadaama muddooyinka ama 10kii sano u dambeeyey baan qorayo muxuu ahaa jacayl kana hadlayay muxuu ahaa arrimaha ku saabsan jacaylka runtii waxaan la soo kulmay qisooyin aad u adag kuwo badan baa muxuu ahaa xalkooda aan qayb ka ahaa runtii khibradda aan u leeyahay arrimaha jacaylka ayaa ii fududaysay iyo sidoo kale sida walaasheen hooda ay ii qaabishay ee quruxda badan leh waayo haddii aad adu wax bilowdo laakiin aan garabka lagula qaban muxuu ahaa guri oodimaysa waxba ma hirgelayaan marka arrintan hooda igu saaciday markaad eegto labada dhinac kule dhexdhexaadin badan baad ka gashay dhinaceebaad isleedahay culayska u badani xagguu ka jiray maxaa sababay lamaanahan inay saa u kala fogaadaan bal culaysyada nolosha ee labadan qof kala fogeeyey dhankuu ka jiray maadaama caawa aynu joogno horta guushii aad uma jeclay inaynu dib ugu noqono muxuu ahaa qaybtii madoobeyd ama muxuu ahaa qaybtii murugada lahayd marka waxaan lahaa xamse iyo hoodo waayaha iyo wakhtiga iyo duruufihii ku gadaamnaa ayuunbaa kala fogeeyey maantana wakhtiga laftiisii ayuunbaa keenay inay dib u midoobaan maadaama oy xamse iyo hooda dib u midoobeen caawa halkan waxaan fariin uga dirayaa cid kasta oo ay khusayso arrinta xamse iyo hoodo iyo cid kastoo danaynaysa arrimaha jacaylka ama qisadii ka dhexaysay xamse iyo hoodo
waxaan leeyahay aynu ka wada shaqayno si wada jira sidii aynu halkan caawa aynu taaganahay arrinta uga sii qaadi lahayn kuna sii dhowaan lahayn guusha way caawa guushi waa bilow waxaan leeyahay hadda wixii ka dambeeya aynu wixii caqabada ah ka hortagno wixii guulana si wada jira aynu wada qaabilno dhammaanteen luquntaadiyo laafyahaaga luquntaadiyo laafyahaaga leegleeg socodkaaga ayaa yaa ilaabkiciye jacaylku waa ka samir ama u samir waa ka samir u xasuuso qadhaadh iyo mahadho ku noolow ama waa u samir sida xamse oo ku guulayso haddii alla kuu qoray ileen dacartuba mar bay dhashaa malab oo la muudsadaaye soomaaliduna waata tidhaahdaa samraa sadkii hela intii ay qisadaynan taxana ay socotay waxaa muuqaalkan duubitaankiisa ka shaqayntiisa afqurxintiisa iyo farsamayntiisaba iska lahaa bushaar jaamac cali bushaar bashka sidoo kale goobta bilcisan ee quruxsan ee lagu duubayna waa hotel megabalasa waxaan filayaa inay tabayso hadalka hoodo iyo waxay ka tiraahdo qisadan balse dareenkeeda waxaanu ku cabiraynaa wale aniga caashaqo bahalkayga weeyaan